السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan. barnaamijkan maanta waxaan kaga hadli doonaa 10 tallaabo oo aad sare ugu qaadi karto kuna xoojin karto iimaankaada. Arrinta ugu horeysa ee aad iimaankaada ku xoojin kartaa toobadda. bini'aadamka waxaa ka dhaca dambiyo iyo qaladaad sababtoo ah ma nihin kuwa dhammaystiran. haddaba waa inaad markaste alla dambi dhaaf aad weydiisataa, si dhab ahna aad uga fogaataa, uga toobad keentaa, kana fogaataa inaad dembi aad samayso. arrinta labaad ee aad iimaankaada ku xoojin kartaa salaada. tuko 5 salaadood si joogto ah. ilaali waqtiyada salaadaha. baro axkaamta salaada. arrinta saddexaad ee aad iimaankaada ku xoojin kartaa akhriska quraanka. akhri quraanka, baro micnihiisa, fahan xikmadaha alle subxaanahu wa tacaala inoogu sheegayo. fuli wax kaste oo alle subxaanahu wa tacaala ina farayo ee quraanka ku xusan. hubi in 24 saacadood aysan ku dhaafin adigoon kitaabka alle kala furin. arrinta afaraad ee aad iimaankaada ku xoojin kartaa waa xuska alle. bar carabkaada digriga alle, kuna celceli markasta kelmadahan: subxaana allah, walxamdu lilaah, allahu akbar, laa ilaaha ila allah, walaa xawla walaa quwata ilaa billaahi alcadiim. arrinta shanaad ee aad iimaankaada ku xoojin kartaa alle oo la tala saarto. eebbe waa naxariis badane, sidaa darteed waa inaad tala saarataa markasta. naxariistiisa aadaan ka quusan, markasta khayr ka rajayso. arrinta lixaad ee aad iimaankaaga ku xoojin kartaa ducada. alle subxaana wa tacaala oo aad baridaa waa mid ka mid a siyaabaha lagu xoojiyo iimaanka. alle waa uu ka jawaabaa duco kasta oo addoonkiisa ka timaada. arrinta toddobaad ee aad iimaankaada ku xoojin kartaa cilmiga diinta oo la barto. guud ahaan cilmigu waa fure. diinta islaamka oo aad barataa, qur-aanka kariimka, siirada nebiga iyo kutubta kale waxay kaa saarayaan jahliga, waxay xoojinayaan qalbigaada, waxayna ku hogaaminayaan inaad kala saarto oo aad kala fahanto xaqa iyo baadilka, iyo inaan lagu qaldi karin, waddada allena laga leexin karin. arrinta 8aad ee aad iimaankaada ku xoojin kartaa soonka sunnada ah. fadli badan ayaa ku sugan soonka sunnada ah. qofkii awooda inuu soomo maalmaha isniinta iyo khamiista waxa uu ka helayaa faa'iidooyin badan. rasuulkeenna sallallahu calayhi wasallam waxaa la weydiiyey soonka maalinta isniinta. wuxuu yidhi, waa maalintii aan dhashay, waxyigana laygu soo dejiyey. nebigu sallallahu calayhi wasallam waxa uu ahaa mid sooma isniinta iyo khamiista. arrinta 9aad ee aad iimaankaada ku xoojin kartaa xusuusta dhimashada iyo aakhiro. haddii uu qofku xasuusan yahay dhimashada iyo aakhiro, waxa uu ogaanayaa macnaha dhabta ah ee adduunkan loo joogo, waxa uuna ku dadaalayaa raalli ahaanshaha alle subxaanahu wa tacaala iyo inuu u shaqaysto daarta dambe ee lagu waarayo. arrinta 10aad ee aad iimaankaada ku xoojin kartaa camal wanaagsan. ku dadaal inaad joogtayso oo aad samayso camal iyo ficilo wanaagsan ilaa ay dabeecad kaa noqoto. hal camal oo wanaagsan waxa uu kuu hogaaminayaa mid kale oo wanaagsan. fadlan subscribe saar si aad uga mid noqoto asxaabta ku xidhan kanaalka. waad ku mahadsan tahay daawashadaada.